النبي عليه الصلاة والسلام dhowrkii sannadood ee ugu horreeyay diinta wuxuu u sheegayay hoos hoos dadka qofkii caqli leh cidii filayay inay wax qaban karayso dad buu gaar u la hadlayay mar dambe ilaahay quraanku soo dejiyay la leeyay fasda' bima tu'mar wa'rid 'ani al-mushrikiin inna kafaynaka al-mustahzi'in alladhina yad'una ma'a Allahi ilahan akhara fasawfa ya'lamun ilaahay wuxuu yidhi فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين كر ودواق waxaan ugu faray baa ilaahay faray nabiga kaleey salaatu wasalaam hoostan iyo warkan dadka gaarka la hadlaysa ka bax i'laan muuj sheego waxaan ku soo dhiibnay dadka oo dhan khalqiga oo dhan ka hortag dabeetana waa ku cuslaatay gaaladii iyo dadkii way ka hor yimaadeen wixii rumeeyay waa la ciqaabo la cadaabay waxaa culaysa haysta saxaabadiisii waa la ciqaabayaa isagii waa laga hor yimi dunidana ilaahay bedel buu ku yidhi dabeetana ilaahay wuxuu ku yidhi waa la caayaya waxbaa laga sheegay ilaahay wuxuu leeyahy walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun waa ognahay baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala inay laabtaadu cidhiidhiyo mise waxay kugula hadlayaan ama ilaahay waxay ka sheegayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam saasaa loo caayayey loo maagayey looga hor yimi ilaahay markaa wuxuu ku yidhi walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin ilaahay wuxuu ku yidhi waa ognay in laabtaadu cidhiidhiyo mise waxa lagaa sheegayee maxay samee maxaa dawa ah muxuu cidhiidhiga naftu haysata kaga baxaya تصبيح سما ليلى أدقو إلهي ما هدقي سموديه سبحان الله وبحمده أدقو له وكن من الساجدين بإلهي كوا سجودا ينا كم النغو كوا سجودا يا كم النغو واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إلهي وحوت المام يا مركز وحا بروبلم كاهري ما دوردن وحدو أديك ستا صلاة دو أديك سو